السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة إليها ونحريسته وأفرت إمام مذاهب الأربعة كي ودن بيه وندأيرا أحمد بن حنبل وحور شيء تاريخ ذي هجري ومركز بقول لحدن يا أفر وحنا بنتي لبب بقول أفرتن إيكو داديسو تقريبا تضباطن إيا تضبا أيو جاري. أحمد بن حنبل هو يدي صفية الشيبانية الأورنجري مقالة بغداد بقول الشيء aabihii isagoo ama caloosha ku jira ama isagoo yar ayuu dhintay. wuxuu yiri hooyaday baa gacanta igu qabatay waxayna ii xifdisay quraanka aniga oo 10 jir ah iyo kitaabka alle waxay ii xidhi jirtay dharka ayuu yiri way toosin jirtay salaada subax ka hor biyaha ayay ii kululeyn jirtay bulsi aan ugu weysaysto kadibna xijaabkeeda xidhan jirtay masaajidka ayay la aadi jirtay marka ay aragto shurtada booliska iyo soo baxay subaxii bay kaxayn jirtay kadibna waxay oran jirtay intay waxoogaa isiisa buuri kibis ama raqiif waxa la yiraahdo ama canjeer ama muuf mid ka rabta dheh ayay oran jirtay halka joogo waxaaga soo bar ayay oran jirtay. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah markuu 16 sano gaadhayna hooyadii waxay ku tiri orod cilmiga soo baro waxayna ku tiri maandhow inna Allah idha studi'a shay'an la yudhi'u ahada, yani hadii Ilaahi subhanahu wa ta'ala wax lagu wadeecaysto oo loo dhiibto ma dayaco Allah baan ku dhiibay ord wax soo baro ayay tiri. wuxuu yiri Imam Ahmad bin Hanbal 70 sano markuu gaadhay hooyadii ayuu xusuusan jiray wuxuu oran jiray rahimallahu ummi كلما تهيأت لصلاة الفجر تذكرتها مركزت أن صلاة الصبح أكعو هو يدي بان حصوصتا محاجر هو يدي بيه أي إيكوليلين جرتي أيوري رحمه الله رحمة واسعة. وحياه صفية الشيبانية صوامة قوامة قف صوم بلان أو هبين كينا استاكتا أي هاي مركا إمام أحمد بن حنبل رحمه الله علمي أيوب برنجري وحنا أتجا علماء وحنا آدي جري وضم بدن حجاز بو آدي جري وأهل مكية مدينة يمن بو آدي جري وأتجا نيكل أورنجري عبد الرزاق الهمام عبد الرزاق الصنعاني أيها الكأوتجي علمي أيونا كسو برنجري وحصوم مرتي إمام أحمد بن حنبل محندي أما أرنتي أتكيد أو مسألة خلق القرآن كل ود لجري علماء أو صدح نن أو حلقة خلافة صومر استجدن بيه مأمون يا معتصم يا واثق صدح ضبوي صور لبان لكن إلهي سبحانه وتعالى أي بدبادي. إمام الشافعي مرو كهليي وحو كيري خرجت من بغداد مقالة بغداد بان كإمد نين أحمد بن حنبل كحلال ميرد بدن أو كعبسي بدن أو كفقي علم بدن أو جمسو تجد. أحمد بن حنبل يا إمام الشافعي وحياها كل ما وحياها يوم حاجة بدن labadooda hooyooyinkood iyagoo yareer bay wiilasha aabayaalkood dhinteen marka hooyooyinkood guur ma guursanin ilmahooda ayay tarbiyadoodii u go'een labadooduba faqiiray ahaayeen waxba gacan kuma haysanin laba agoonna way ahaayeen laba nasab oo fiicanna way ka soo jeedeen arrimahaasna waxay ahayd bal arrimaha ku bixiyay inay dadaalaan oo qofku haduu faqiir yahay i'timaad ala dhaad isaga maaragtay cid kale sugi male haduusan aaba lahayn cid kale u sugi male hooyooyinkoodna way la dadaaleen hooyooyinkeen insha Allah ta'ala iyo gabdhaheennaba awlaadaha la dadaalaan insha Allah ta'ala ilaahina subhanahu wa ta'ala dhurriyatan tayyibah inagu wada arsaaqo a'immatan yuhtada bihim ويقتدى بهم لو ضيضوا أو لو هنوننا إلهي عرورتنا كدبوا. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.